isku-aadka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan lagu qabanayo dalka qatar ayaa waxa uu ka dhacay shalay oo jimco ahayd wadankaasi. tartanka ayaa la qaban doonaa 12 November ilaa 18 bisha December ee sanadkan 2022. ciyaarta furitaanka tartanka ayaa dhexmari doonta qatar oo iyadoo martigelinaya koobka iyo sidoo kale xulka wadanka Ecuador. xulka Faransa oo koobkan difaacanaya ayaa ku soo baxay group D oo ay ku jirto dowladda amaba xulka wadanka Tunisia. gruupka shanaad waxaa ku jira xulalka Spain iyo Germany. labada xul ayaa ku kulmi doona kulankoodii labaad ee gruupka 27 November. Sacuudi Carabiya ayaa ku tartamaysa oo gashay group C oo ay ku jiraan Argentina, Mexico iyo Poland. Morocco waxa ay wajihi doontaa Belgium, Canada iyo Croatia. tartamada group F dhanka Brazil oo ku soo laabatay kaalinta koowaad ee qiimeynta caalamiga ee xiriirka caalamiga ee kubadda cagta FIFA 31 Maarso waxa ay wajahaysaa Serbia, Switzerland, Cameroon oo ay ku wada jiraan group G. kuwa soo socda waa liiska kooxaha iyo sida loo qeybiyey kooxaha ka qaybgalaya. group A waxaa ku jira Qatar, Ecuador, Senegal, Netherlands. group B England, Iran iyo sidoo kale Mareykanka, Ukraine iyo Scotland ama Wales. saddexdaasi kii soo baxa ayaa afareen doona gruupkaasi. group C na Argentina, Sacuudi Carabiya, Mexico iyo Poland. group D Faransa, Imaaraadka, Australia ama Peru kii soo baxa ayaa afareen doona xulalkaasi sida Denmark iyo Tunisia. group E na Spain, Costa Rica iyo sidoo kale New Zealand kii soo baxa ayaa waxa uu afareen doonaa Germany iyo Japan. group F na Belgium, Canada, Morocco, Croatia. group G na Brazil, Serbia, Switzerland iyo Cameroon. group H na Portugal, Ghana, Uruguay iyo South Korea.